Soomaali baan anagu ka dhalanno Soomaali baan nahay horta dhulkana kamaana soo bixin dhirkana kamaana soo dhicin ma u malaynaysan aniga adinku inaan midab ku kala duwanahay aragtida bayna ka duwanahay adiga soo ku meeki way aad iyo duwantay ku sano ya soo walaasha mihi muslina diinta islaamka xagee kaga taalinay dulantid ya inay dulantid diinta islaamka Soomaaliya meesha kaga taalay ii sheega miyay jirtaa haddaba ilaahigiina abuurtay ka cabsada inta ay maqlayso oo caalamkayga maqlayso oo waxaad ilaahay uga cabsataan adinku aniga hay turinina adinku naftiina u tura way naftiina waxaad ugu turaysaa rasuulka kaleey salaatu salaam wuxuu yiri qofka waxa dambi ugu filan inuu qof walaalkiisa duro oo baarka uu duro oo yiraahdo qofka waa sidaan iyo sida Soomaalida lagu sameeyay anagu dhibaato kasta oo lagu sameeyay walaalaha yaatiin Soomaali baan nahana kuna anagu waa in jecelna dhibaatada idin ma quurno hal qof oo Soomaali inuu wax yar xanuunsado ma jeceli beenini ma sheegayo wallahi hal qof oo Soomaali adduunka caalamka meeshu ka xanuunsay wallahi waa la xanuunsada maxaa koos garay adigu intaas oo sameeyay dulmaysay marka marka madaxweynaha kilanka shanaad Soomaaliya waxaan leeyahay guulayso hadal badan ma hayto de Soomaaliya wax la iga horeeyay laakiin waxaan leeyahay dulmiga dhulka dadka ka dulqaaday adigana maalinta qiyaamaha cadaabka Allah ka dulqaado laakiin Soomaaliya anaga hanoo turinina adigu isku tura maalin ilaahay la hor istaagi doona imaan doonta oo lagu dhihi doono maxaad qofka walaalkaaga ku durtay ma fahamtay waxa laga yaabanahay adiga inaan ka maxfid quraan sanahay baa laga yaabaa inaan ka cilmi badan laga yaabaa sharcigu ma lihi marka inay tiraahdo adiga kuma guursanayo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri suurad quraan wuxuu ku leeyahay gabadha islaamka wiilka islaamka uu guursan karaa adiga hadaa tiri wixii ilaahay soo dajiyay anigu ma sameeynayo de suurada quraanka abad beenayseen marka Soomaaliya adigu isdaba qabta dadka iyagana waxaan ku oranayaa waxa weeye waxa ku jira rag badan oo aqoonyahan ah dad badan oo aad u cilmi badan xaqiiqdii Soomaalida anagu cilmiga Soomaalida waan uga horeeyay anagu dad xadaarad leh baan ahay waxaan ka garanaysaa in xadaarad lahayn Soomaalida ka ilbaxsanahay adigoo midihaysan oo aan waxba aad ku qalato xoolaha malaha aan ayagoo la birayn hadaa midihaysan maxaad ku qalanaysaa ayaan mid ku sameeyay diksi adoon haysan oo wax ku karsatidna diksi baan ku sameeyay adoo xagaxad oo qodax ku mudaysana kabahan ku tolay ma fahamtay haw aniga waxay ahayd inaad qabiga dhigtid inaad dooniga dhigtid ma ahaan way adiga waa ka cilmi badan waa ka xadaarad badan diinta islaamkuna ma qabto sidaas waxaan hadal ku soo gabagabaynayaa dad badan maadaama ay sugayaan waa inay maad celinayaan kulligiin Soomaalina walaalahan weeyaa wiilka madaxweynaha ka maxaan ku kilinka shalaad waa la garab taaganahay qadiyadu sameeyay uu ku mahadsan yahay aawa hadaa heli karana bilad dahabaan u gelinaha surka laakiin badalkeeda insha Allah janna ugu ducaynayaa waana la garab taaganahay qadiyada Soomaaliya oo dhan sida wiil madaxweynaha ha noqdaan madaxweynaha ku daydaan dulmi buu idinka qabta gacantee dulmiga uu idinku hiliyay adigu isku garta waana ma sadin kulligeen meel joogtaan jazakallahu khayr